عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Mohamoud Ciise. halkani waa Grand Online Academy. waxaynu ku dhex jirnaa wali course-keeni pharmacology-ga. maanta waxaynu ka hadli doonaa daawooyinka lagu daweeyo depression-ka ama qulubka ama walaaca oo loo yaqaan depression. daawooyinka waxa la yiraahdaa antidepressants. intaynanu bilaabin daawooyinka barashadooda waxaan doonayaa idiin sheego waxa socda isdiiwaangelinta course-ka pharmacology-ga. haddii aad xiiseynayso barashada daawooyinka qaab online ah adigoo gurigaaga jooga waxaad ku soo biri doontaa insha Allah. sidoo kale ha loobin videogan markaad daawato inaad like tiraahdo iyo sidoo kale inaad videoga sii share garayso. waxaynu maanta ka hadli doonaa antidepressants, daawooyinka lagu daweeyo depression-ka. intaynanu daawooyinka u iman horta waa maxay depression ama stress-ka waxa loo yaqaan qulubka iyo walaaca maxay markaa depression waxa weeye mental disorder waxa xanuun ku dhaca maskaxda ama dhibaato maskaxda ku timaada taas oo markaa la imanaysa calaamado ay ka mid yihiin low mood, qofka oo shucuurtiisu ay hoos u dhacdo, farxadii qofka oo yaraata, qofka oo markaa werwer fara badan dareemaya, loss of interest, qofka oo lumiya wixii uu xiisayn jiray, xiisaha nolosha ama wixii uu awal xiisayn jiray, hadduu kubadda xiisayn jiray, hadduu xiisayn jiray inuu movies-ka daawado, hadduu xiisayn jiray inuu asxaabtii waqti la qaato, waxa ka lumaya dhammaan nolosha wixii uu xiiso u hayay oo dhan. fatigue, tabcaan iyo daal ayaaba qofku had iyo jeer dareemaya, iyo sidoo kale low energy, tamarta qofka oo hoos u dhacda. marka waxaasoo dhan maxay ka imanayaan? waxay ka imanayaan dhibaatadan maskaxda ku timaaday. marka daawooyinka ayaynu maanta ka hadli doonaa lagu daweeyo depression-ka. haddaba dhibaatadan marka laga hadlayo depression-ka waxa weeye theories ama fikrado fara badan ayaaba inta badan dadku sheegaan iyo dhakhaatiirta iyo dadka science-ka bartay dhibaatadu halkay ka imanayso. marka waxaa loo malaynayaa oo la fahamsan yahay inay dhibaatadan keenayso hoos u dhac ku yimaaday dhacaanada maskaxda ee loo yaqaano monoamines in the brain. dhacaanada monoamineska loo yaqaano ayaaba markaa hoos u dhac ku yimaaday. hoos u dhaca marka monoaminesku waa maxay? marka monoamineska waxaa ka mid ah maadada dhacaanka la yiraahdo neurotransmitterka la yiraahdo serotonin, norepinephrine iyo dopamine. marka kuwaas levelkoogii ayaaba hoos u dhacay. marka maxaynu u baahannahay markaynu depression-kii daweynayno? waa inaynu maadooyinkan amaba neurotransmitterskan chemicalskan waa inaynu kor u qaadno, waa inaynu kordhinaa. daawooyinka depression-ka lagu daweeyaa way badan yihiin, aad bay u badan yihiin. marka waxaynu maanta qaadan doonaa group ka mid ah oo loo yaqaano selective serotonin reuptake inhibitors, daawooyinka la yiraahdo ama SSRI. marka maxay qabtaan daawooyinkan? horta daawooyinka waxaa ka mid ah fluoxetine, sertraline, citalopram, paroxetine. marka groupkaas oo dhan paroxetine ayaaba ka mid ah marka antidepressants-ka, weliba gaar ahaan selective serotonin reuptake inhibitors-ka. siday u shaqeeyaan? haddaba siday u shaqeeyaan daawooyinkani? waxay u shaqeeyaan waxa ay yareeyaan ama ay ka hortagaan serotonin reuptake, maadada la yiraahdo serotonin. markaynu daawooyinka seizures-ka lagu daaweeyo ka hadlaynay ama epilepsy-ga suuxdinta, waxaynu soo sheegnay nerve-ku wuxuu leeyahay waa presynaptic iyo postsynaptic. dhexdooda waxa u dhaxaysa junction la yiraahdo synaptic cleft baa la yiraahdaa ama junction dhexdooda. marka kani birigu markuu soo daayo neurotransmitterka dhexdu ku soo shubmaa, kadibna wuxuu gudbaa kii dambe ee fariinta sii gudbinayay. haddaba daawooyinkan waxay sameynayaan serotonintii ama maadadii dhexda ku soo shubantay halkan synaptic cleft-ka ah, waxa dhacda intii gudubtay maaha, intii kale dib baa loo celiyaa, reuptake baa lagu sameeyaa oo waxa dib loogu celiyaa presynaptic nerve-ka ay markii hore ka timid. marka markii dib loogu celiyo meeshii way ka baxaysaa. marka daawooyinkan waxay xanibayaan reuptake in dib loo qaado oo loo celiyo. haddii dib loo celi waayo maxaa dhacaya? waxay ku badanayaan dhexdii, they increase in the synaptic cleft. dhexdii bay ku fara badanayaan. hadday dhexdii ku fara bataan synaptic cleft-kii ku badatana kadibna maxay u gudbaysaa
post synaptic bay u gudbaysaa gudbintii maskaxda ay ka qayb qaadanaysaa shaqadii iyo moodkii iyo mashaacirtii qofka ayaabay soo celinaysaa this is known as marka serotonin marka dawooyinkani waxay xanibaan they decrease serotonin reuptake serotonin in dib loo celiyo ayaabay yareeyaan kadibna maxaa badanaya increased neurotransmitter kiiba wuxuu ku badanayaa in the synaptic cleft kiiba ku badanaya marka xaggii kalena wuu gudbayaa post synaptic levelkii neurotransmitter ka kordhaya marka dawooyinkani maxay side effects leeyihiin horta dawooyinkani marka loo eego dawooyinka kale ee depressionka lagu daweeyo waa kuwa ugu safesan uguna side effect sahlan uguna marka side effectigooga ay ugu dhibta yar lihiin way iminkana waa dawooyinka ugu badan ee la isticmaalo marka way ka wanaagsan yihiin gurubyada kale marka they have SSRI have less severe side effect waxay leeyihiin dhibaatooyin ka yar kuwa kale ee dawooyinka kale depressionka lagu daweeyo haddaynu sheegno side effectigooga caanka waxa kamid ah insomnia hurdo la'aan hurdida oo qofka ku yaraata ayaabay keenaan soo kale waxay keenaan sexual dysfunction ay sidoo kale ay keenaan dawooyinkani marka waxa kale oo marka dawooyinka depressionka kamid ah group kale oo la yiraahdo monoamine oxidase inhibitors iyo sidoo kale group kale oo la yiraahdo tricyclic antidepressants marka dawooyinka dhamaantood maxay badinayaan they increase saddexdan hormoon mid kamid ah serotonin norepinephrine iyo dopamine marka waxa kamid ah marka SSRI ga oo ugu muhiimsan ayaynu ka hadalnay maanta casharo kale ayaynu kaga hadli doonaa marka qaybaha kale ee dawooyinka depressionka marka dawooyinka lagu daweeyo halkaas ayaabay maanta inoogu joogaan aad baa idin salaamaya haddii aad marka videogan jeclaatay ama like garaysay fadlan like saar sidoo kale isku day inaad share tiraahdo oo aad la wadaagto asxaabtaada iyo ehelkaagaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo kale baraarujin lahaa qofkii xiiseynaya barashada daawooyinka class baa socda pharmacology adigoo gurigaaga jooga ayaad qaab online ah aad ku baran doontaa